lama rabo in la ilaaliyo in laga soomo keliya maahan biyaha iyo bariiska waa in lagu daraa waxyaabo badan waxa maanta meesha la soo istaajiyay ma jiro horta muwaadin Soomaaliyeed raalli ka ah ama xildhibaan Soomaaliyeed Soomaalidu waxay ku maamulaa geeridii galbeed laga sheego gundahaya ka day haddaan iraahdo maanta xildhibaanka walaalahooda ee soo gudbistay maanta mooshinka soo gudbistay ee yiri waan lagu xadgudbay haddaan iraahdo waa lagu saxeeyay koleytada wax qaldan oo wax wanaagsan maahan qof raalli ka ah ma jiro in xildhibaan Soomaaliyeed inta bal soo istaajiyo la yiraahdo ama baaritaano iyo dhibaato iyo wax lagu sameeyo laakiin sababaha waxaan ka waraysan doonaa qof dakhran haddii ku yimaado waxa weeye kii ku soo tagay bal soo eeg haddana adalahan waxa ka socda mooshin sababaha loo eeyo ugu badan tahay inay tahay jeclahay xildhibaana 4 bilood lagu leeyahay kuma khaljubalaan xildhibaan Ilyas Gaboose asagoo musharax u tagay meesha raadsanaya madaxweyne ma dhihi karnaa sababo la xiriira arrinkaas in mataqaana xildhibaanka taga meeshaas inuu nabad ku soo noqonayo iyo inuu ku soo noqonayo sababo amnigooda la xiriira inay u xaniirtay hay'adda MISA ama guddiga ammaanka qaabilsan golaha shacabka ma dhihi karnaa ninku wuxuu isu sharaxay madaxweyne halkaas uu aaday ilaa hadda sababo amnigiisa la xiriira ayuu u maqayay waana xildhibaan haddana aan idin hadlayo hadda TV-ga qaranka fiirsateen waxa ka socda mooshin lagu dalbayo ama lagu raadinayo marka waxa la walaalayay halkaas aaday in badbaadada uu ku jirto laga yaabaa ayaga la badbaadinayo naftooda inay soo noqonayaan ama arrimo kale ay jiraan laga yaabaa waa taasna waxa leenahay markii la soo celiyay xildhibaanada walaalayay ah oo aan maqlay qofku ugu horeeyay dadku ugu horeeyay maqlay rabarka ee udiisa jooga ku jira wallahi waa soo maray laakiin waxa xaqiijiyay oo waxay oo ku iri guddiga amniga markaas qaabilsanaa ee garoonka aadan cadde ma sheegayo bisaan qof inuu sheego been ama ku hada qiyaadada laakiin waxa ii xaqiijiyay in wiilkaas amniga ka mas'uulka ah ee halka walaalka ka waran baabay uu soo tagin xildhibaanada uu soo arkin ee soo ismaqlay waa wiilka misan haystahay Italiya booliisku inta waxay xaqiijiyeen inaysan xildhibaanada is arkin marka arrintan isma arkin iyo tii ma arkin waxa kaga filan horta xildhibaanada waxaan leeyahay in power abuse la sameeyo sharciga kuma jirto at all xildhibaanka hadduu qalad galo waa in sharciga la soo hor keenaa xildhibaano badan waxaa jiro ciidanka si qaldan uga dhaqma golayaasha meelaha qaar markay tagayaan war gacmahan diibana markaa marayno eerborada iyo adduunyada kale markaa marayno in la baara ogolahay in la istaajiyo ogolahay sababo amniga la xiriira wax walba inaan marno ee gaariyaasha ay ururiyaan ogolahay maxaa noo diiday inaan respect gareeno ciidamada qaranka ee qoraxda aragtay maanta noo taagan ee dalan la'aanta ku shaqeynaya ee jiifka taagan ee amniga sugaya maxaa noo keenay inaan qaadacnaa amarkooda waxaan leeyahay guddiga gudoomiyaha golaha shacabka wuu ka dhiibiyaa maanta mooshinkan hadda jira ma uusan qabteen haddii uu raali ka yahay in xildhibaan la dulmiyo annaga aragnaa soo amni soo dagaalaya annaga aragnaa waa soo warqado u qorayeen annaga aragnaa maalin walba soo u taagan raalina kama noqdo raalina kama ahan mana mataqaanaa ugumana jirto qorshaha inuu xildhibaan lagu ciyaaro sharafkiisa iyo xisaabadiisa intaba shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub